qofka xasidka waxa uu markasta u muuqdaa qof madluum ah halka isaga uu yahay daanimka waxasda. qofka xasidka waa uu murugoonayaa markii uu arko qofkii xasday oo faraxsan. qofka xasidka waxa uu siyaadaya oo wajigiisa ka muuqanaysa caro markii uu maqlo qofkii uu xasday oo wanaag sameeya ama guul gaaray ama nabad ka shaqeeya. qofka xasidka waxa uu markasta isku dayaa inuu kooxoosi sameeyo dad badna ku diro oo nacsiyo qofku uu xasday haddana ciil baa qabta oo markii uu shaqeey waayaan ay furfurmaan xarka kasta uu xiray. qofka xasidka ma rumaysna raalina kuma aha qadarta alle waayo wuxuu qofku ugu xun yahay uu ku xasdayaa nimco alla siiyay sida magac mansab maal maskax muuqaal iyo wixii la mid ah. qofka xasidka kolkii uu qofka ka hadlo fikrad wanaagsan ama waxqabad fiican sheego wuxuu qofka xasidka la soo boodaa inuu si kale u dhigo dhinac kale u rogo wax aanan jirin ama macno sameyn ka dhigo waayo ma xamili karo inuu sii dhageysto. qofka xasidka waxa uu markasta raadiyaa sidii qofku u xasday jab ugu dhici lahaa balse Allah ayaa qofkii u fura albaabo cusub. qofka xasidkaana ka xir albaabada. qofka xasidka waxa uu xasidka markasta ayaa qofku uu xasdayay waxa uu raadiyaa ceeb cilad haddana isagu ayaa qof ciriiri ku nool. haddaba ka fogow iskana ilaali xasidnimada marna xasdin qof qoys qabiil ama qowmiyad. ku farax wax kasta oo wanaaga oo xagooda si adigana Allah uu kuu siiyo nimco iyo barako. qofka la xasdaya waa inuu ka fogaadaa dambi Allah u toobad keenaa sadaqada badiya cafiya cid kasta wanaagna fala. waad ku maasantahay daawada haddii aad daawatay muuqaalka waa kaaga madcelinaya waqtiga aad gelisay barteena YouTube-ka Team Zaki waana baraha bulshada bartaan ku leenahay. daawada misleeda bar kale ayaa jirto waa maya halkaani aniga adiga iyo dhammaan ayay naga wada dhexaysaa. aniga ilaawina Team Zaki subscribe saarto mahadsanidin.